juucan wanaagsan dhammaan khiyaarta wada nagala socotay ku soo dhawaada barnaamij aad u xiiso badan oo aan idin ka soo diyaarinay deegaanka geed xamarka oo ka tirsan degmada Woodward. barnaamijkan ayaa waxa aynu ku falaqayn doonaa xaaladda guud ee deegaankaasi iyo sida ay tahay. subaxnimadii saaka ayaa deegaanka Woodward ama degmada Woodward waxa ka kicitimay wafdi ballaaran oo ku sii jeeda deegaankaasi iyagoo indhayn ku soo sameeyay xaaladda guud ee deegaankaasi. wafdidani ayaa markii ay deegaankaasi booqatay waxa ay la hadashay warbaahinta iyagoo u diray baaq qurba joogta iyo waliba dalka gudihiisa dadka jooga ee deegaankani ka soo jeeda. sidoo kale noogu baaqay in deegaankani laga soo caawiyo dhinacyada waxbarashada, iskuulada, caafimaadka iyo goobaha lagu cibaadeysto ee masaajidada iyo waliba goobaha markaasi caafimaadka iyagoo markaasina baaqyo kala duwan u diray qurba joogta deegaamada Sool iyo Sanaag iyo waliba qurba joogta ka soo jeeda deegaankani Woodward oo ay si gaar ah ula hadleen isla markaana sheegeen in ay deegaankani yahay deegaan istiraatiiji ah in muddo ku dhan 8 biloodna uu dhisnaa isla markaana loo baahan yahay in ay deegaankani ka soo qabtaan dhinacyada baahiyihiisa intii kalaankooda ah. ugu horeyntii waxaa barnaamijkani aynu ku eegi doonaa bal muuqaalka guud ee magaaladaasi. barnaamijkana waxaa isku soo dibariday diin la soo habeeyay anigoo Cabdi Ciraa daawashaha barnaamijkaasi. dadka oo midoobo xilligii madoobiyo nabad lagama maarmo maalintay xumaatee ragga aydun murantaan waranku waa maxaan yahay madowgaaga kaan rabin muuqaaga kiimicin madowgaaga kaan rabin muuqaaga kiimicin isana hamir marin isana hamir marin haddii aan maskaxi talin isku maqal xumaha jira ilu maalin aragti lugu hawsha maamulin gacmuhuna wax kuu qaban cadowkaama maato haddii aan maskaxi talin isku maqal xumaha jira ilu maalin aragti lugu hawsha maamulin gacmuhuna wax kuu qaban cadowkaama maato midabkuba sad weeye magacuba dan weeye midabkuba sad weeye magacuba dan weeye murtidu dhaxalgal weeye murtidu dhaxalgal weeye
geed xamarka oo wudud 15 kiiloomitir ka xiga xagga cadceed galabeedka deegaanka oo looga baahan yahay aanina loogu diidi karin Soomaaliyeed cid Soomaaliyeed looma diidi karo inay deegaan baayac mustar ku qabsadaan nala deegaanina looma diidi karo waxa weeyaan markaa wuxuu u baahan yahay ilaa 8 bilood ilaa 10 bilood deegaankaas u dhisnaa la degay wuxuu u baahan yahay bulshadu waxay u baahan tahay u baahnaansha deegaan cusub ay u baahan tahay waxay u baahan tahay waxbarasho meel oo loo reebay masaajida loo reebay biyay u baahan tahay intii ka soo qaybgalaysa gacmo furan baan ku soo dhawaynaynaa waana u baahanahay cid nala sida odaygu sheegay meeshani waa deegaanka cusub ee xamarka waxaa loo baahan yahay oo looga baahan yahay in la deegaamiyo hadday tahay xag waxbarasho iyo hadday tahay biyo wixii deegaan u baahnaan jiray bay u baahan tahay marka sida odayga horeba sheegay waa deegaanka firiiga waxayna firiig u tahay dadka ku dhaqan bulshada yacayn gobollada Soomaaliya deegaamada aan xirnay gaar ahaan kuwa u dhashay deegaanka wudud baanu aad uga sii hadlaynaa oo aanu aad uga sii boorinaynaa si horeba ay uga soo qayb galaan oo ay ka faa'iidaystaan dib u dhiska iyo horumarinta deegaamadooda iyo dadkoodana ay uga faa'iideeyaan sida hay'adahoo kale iyaga laftooda deebaha kuwa maxalliga iyo kuwa caalamiga u diraynaa bulshadu ka dhexeeya iskuullo hadday tahay biyo gelin ayu nooc waxa weeyaan baahida deegaanka jirta dee way fara badan tahay dadkaana waanu gudbinayno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبعدي دينتي وضيع شهر الشيخين واحد بكر دينا يا مشران تيوم بنات عيونا ناحية حويان تجانكو تولى يقان تجان عصب وحبوا بهن يهي وحبوا بهن يهي بيوه هدي ريك تهي هدي براك تهي مر هدان ماشي حيل لهين labada muhiimka ee la doonayo wax laga qabto waa labada waxa weeyaan iskuulkii iyo maxayto iyo malxaamadihii masaajidadii caafimaadkii sida odayaasha horeba u sheegeen intaas oo dhan u baahannahay in waxna laga qabto baraagaha waxaa gacanta lagu hayaa ilaa kala baraagood hawsha socotaa waxa weeyaan magaalooyinkii la midka ahaa جهلوا كلا قيب كلام يو هذا كلا قيب كلام وبران الله بسي بران سايم وأنا هنا مدركا ومدرنا هاي مقالاتنا مدركا لميت هاي مقالاتنا أي تاي مقالة ربعان تأسولي بسناء حين انت يا شهر وشيء أيام فرنت هاي